gabadhu waa la hardamay bastooladiiu asuu soo aadaa oo ka soo qaatay saabiriin waa talaa marka gabar fiicanaata waxaa lagu aqoonsaday inay gabar geesiyata guulayso shukaansiga inta ku dambeeyay shukaansiga hor shukaansiga markaa ka soo tagay mudane kontaga isma marshimiya raabara taamiyadi ma lacagti aad ka bixisad lacagtu ay jirtaa ayaga jirtaa magacyadooda mudug gudoomiye ka yaabaysa Afaa Jaban iyo Wiz Khalifa waxaan la fahmin Afaa Jaban iyo Wiz Khalifa oo madax furashada ka gaaray heerka oo dhintay u cabaan sida biyaha oo kale ayaa macaamiil joogto ah u ahaa xabsiyada kadib markii ay caadeysteen inay ka shaqeeyaan fidno iyo qalqalgelin amni waana kuwa ka dhaartay inay maalaan muruqooda oo ay shaqaystaan risiq xalaal ah waxayna ku heshiiyeen inay ku qarabtaan burcadnimo iyagoo adeegsanaya hubkii qaranka iyo mootofeekon Ozil uu wada ka yahay dable xoogga Maxamed Axmed Cismaan Afaa Jaban oo ka tirsan ilaalo qaran iyo ekis mudane Nisa Cabdi Fitaax Faarax Cabdulla Wiz Khalifa marka hore shukaansi ayaa loo baxay soo laabashadoodii ayay xaafadda Busley ee degmada Boondheer ku arkeen Saabiriin Axmed Maxamed kana qaateen taleefan iPhone 15 Pro Max ah waxaana faldambiyeedkan oo dhacay 11kii bishii 7 ee sanadkan duubay kaamirooyinka eedaha ammaanka iyadoo la arkayo eedeysana Afaa Jaban oo taleefanka ka qaadayo Saabiriin kadibna ku baxsanayo mootofeekon uu wada ka ahaa eedeysanaha saddexaad Axmed Abuukar Maxamed Ozil Saabiriin oo daba gashay eedeysanayaasha markii ay dhaceen kadib ayaa heshay taargada mootada xiriiro kala duwan oo ay sameysay ayaynu ku suurta gashay in maalmo kadib la qabto Ozil iyo mootadiisa oo isla goobtii dhaca ay ka geysteen kolkii hore jooga sidaas ayaynu ku suurta gashay in la helo labada kale Afaa Jaban iyo Wiz Khalifa falkan uma ahan kii ugu horeeyay ee waa caadeystayaal dambi oo horay dhowr jeer loogu xiray falal isugu jira israsaaseyn dhaawac iyo kuwa kale iyadoo ay jirto in Wiz Khalifa uu mar ka baxsaday xabsiga saldhigga Shangani xilligaasi oo loo soo xiray dhac uu ka geystay degmadaasi mobile iPhone qaatay asal idin haystaa eedaas ma jirtaa mise ma jirto jirtaa ay see u jirtaa haweenada ka mid ah aniga mujida oo Shangani joog Afaa Jaban soo waa Afaa Jaban soo waa nakeen oo yiraahdo intee aada dimaashiya u socdaa shukaansi aad ira amal dhartuutuna waa wataa inaa ku dhiibtaa rabaa ayaa dhaaday yar saaxiibkay oo feekon la ah ninkan Axmed Abuukar leeyahay awacad oo ii yimid waa soo raacnay degmada Boondheer aan soo aadnay markaas soo aadnay dharka tuutiga wuxuu ugu siibay jubbo iskooska jubbo markuu ugu siibay ka soo badashtay dharkayga waa batay u dhiibay waa soo raacnay markaas soo raacnay dimaashiyo aaday arrimaha hayste ma sheegi karaan laakiin asiga la weydiiyaa markaas soo baxnay waa soo raacnay aday dharka u bedelay Boondheer oo imaaday dharka tuutiga anaa wata dharka tuutiga anaa wata tuutihiis oo militariga ma qoro kuma wadan hubna kuma wadan qorigiisa ma aqaan oo qaylay laakiin qaylaad oo ka soo kac meel qaylaad muqaayada ka soo kac soo raacnay markaas xitaa aday Boondheer imaanay gurigii oo galay feekonta meel baakimanay oo ii soo noqday adiga mootada aan jeedaa ka soo kacnay oo soo baxnay marka soo baxnayna aday mobile oo ii dhiibay oo ku dhiibay mobilka markuu ii dhiibay wuxuu dhahay shaqaaleeyahay mjeedaa aday mobilka noo soo kala tuur wax allaala mjeedaa waxa ii soo diraysan ii soo dir oo billaahi ala soo baxay yarkan ay is yaqaanaan yarkan Abuukar ay is yaqaanaan feekolna awmaan oo Cabdifitaax leeyahay awmaanay oo ku wareejiyay marka lacag markaas muctaad waxa uu ahay markaas $50 camal aan muctaad u ahay lacagtii aday ka soo tuurtay ninkan xataa beecis ma galinba ninkii idhiiba beecis ma galinba lacagta waxa aniga iskaaga muctaadka u ahay iskaaga dibay kontaga isma marshimiya wax kale ma jiraan intee ka soo qaadeen idinka mobilka ka see loo qaaday dimaashidii ma laga soo qaaday maya gabartii la shukaasay ma laga soo qaaday maya intee ka soo qaadeen Busley meel ama jeeda u baakiman aniga xaafadii oo shukaansiga soo dhameystay arrimiis markuu soo dhameystana maarid shukaansiga waa la tagay horta miyaa waa tagay ka bacdi soo noqonay waana soo raacnay markaas soo raacnay aday mobilka soo wada ma jeeda oo iga dawmaada oo dhag igu dhaaf feekonta noo saaran maya mobilka markii la qaadanayo soo awood lama rabo qori wax yaa qori la'aan ma qofka laga qaado mobil soo ku soo qaadanay ma aqaan ma qori inuu wata waa ogaa kartaa laakiin ma markaas ani markaas hub kuma ogeenba marka uu ma hayo maarid hub kuma ogeen koo marka uu ma hayo hub kuma ogeen tuutiis ma cilis tuutaan waxa ugu siiyo baadii Shangani ugu siiyo asiiska jooga dhaaday waa soo kala tuuraa dhaaday waana ka socdo hal mobil bis ma la qaaday hal mobil bis la qaaday wax kalena ma jiraan Axmed Abuukar u dhiib Axmed gudoomiye see wax u jiraan adiga ragaana gacan ku siisaa u dhahay inay alaab
تعال مدن قدامي horta anigu iskhaliifa soo wacay yaa ku soo wacay iskhaliifa ku soo wacay bartamaha ugu imaad wuxuu dhaa boon dheer ay geeyo ay soo celinay marka soo baxnay jubba waxa ka soo maray ninkan yarka iga dambeeyo marka aniga yarka misna qaanan faant waa soo baxnay wuxuu dhaa xaafadu meeshii ay geeyo dhaa waa soo wada markay meeshan masaajidka oo salaxa ma arkno bisley oo istaaji labadooda ay iga degtay gudoomiye markay iga degteen yarkan oo tuuto ay agtii taagnaa laakiin cabaar oo jiray kabacdi mootada oo yarkan ay yimaadeen mootada soo raaceen Cabdicasiis Giyaarina Cabdicasiis Akeen kabacdi lacagta oo mootada kirida iyo tuurada ijaarka kabacdi wuxuu dhahay mobile awada ayaa gida Cabdifataax yar la u tilmaam yarka ogad kabacdi aan mootada iyo tuur lacagta ijaarka yaa hubaysnaa labadooda horta hub yaa wad labadooda aniga qof ku ogeyn kan waa soo maray kan asaabi soo wacaa qora ka moodan ma qor moodan baskoladna ku arkin talyaani tawreen ma see ku qaateen mobilka lagu soo qaaday qaabka lagu qaadan mobilka masheekir gudoomiye baan ku sheegay meeshii waa istaagteen la dhahay soo qof laga ma qaadin gabadha ani baakina ku jiro arrimaha dhan wax ma ku ogeyn baakinka marka adiga maxaa ku qabanaysa meesha baakinka soo ninka baxay ma sugaynin ninka wax soo qaaday nimankaas sugay mobilka iska daawanaya marka qofka laga gaday iyo waxa isku geysamaya iskhaliifa iska fariis dhibanad Saabiriin Axmed Maxamed ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida sharaxaad ka siisay sida loo dhacay habeenkaasi iyo falka kadib talaabooyinkii ay qaaday say wax u dhaceen say wax kugu dhaceen bisha dil soo dhaafay 11keed maalin oo sabti ah habeen axad ay soo galayso hal sac oo wax yar dhiman maqrib iyo cishinta u dhaxayso shaqaakii imaaday xaafadda u socday marka xamreena gaari uu soo degay xamreena ilaa boondeer waa lagu marmar iska lagu baxsadaa waa lagu weynaa xaafadda marka soo gaari interlog intaas luuq intaas soo galin moota meesh taagneed moota kala soo istaagtay mootadii kale markay soo istaagtay waa shaki mootada fiiri saddex nimana saarnaayeen waa is mashquuliya marka aan fiiriyay waa cudub bileesti marka waxa isday xaafadan caadi waa nadiif wax maluuqaatee telefoonka marka gacanta ku hay waa isticmaalay waa leexday marka telefoonka waa soo baxsaday waa isticmaalay dhigaa wati marka xoogaa markaas socday guriga camal albaabka xag markoo ii jiro meel oo xoogaa mugdiya jirto marka maray nina arki waa isku soo horjaray bistoolada wati xabadko iigu dhuftay dhinacaanita oo bidixda naas korkiis oo xoogo iigu dhuftay keen oo idhay keen markoo idhay waa fiiri waxa u maleynaa qof aan aqaan oo igu ciyaarooyo marka fiiri arki qof aan aqoon inuu yahay gadaala uu sigtay waa igu soo daw sigtay mara damcayna ordo hadan waxa dhaada ordo qofkan bistoolada wataa ama wax ku dhuftaa marka wiilala xoogaho ii jireen oo meel oo mootooyinka laga raaco wiilashiya marka telefoonka agtooda u tuuray wiilasha agtood ma gaarin telefoonka markii ko bistoolada oo igu dhufanay markaas aan ahay gacanteeda way gaabatay marka waa baxay mash telefoonka markuu u dhawaaday bistoolada wuxuu gashtay geeska telefoonka soo qaatay wuu soo kala wareey markuu kala wareey orday wiilasha mootada aragtay markoo si ordo mootada si raacay la wiila ay soo orday mid moota ana raacay midna gadaal iga daw socotay waa bursanay marka ilaa ay waxa bursanay beerta nabad inta si socon marka taargada ka qortay wiilka mootada wuxuu idhaa taargada iyo qabo marka waxa ku dhahay taargada ma qabo kariya dhaay xoogaho maskaxdeeda waxa waaye telefonkeen niclaho ii dhiibi wuxuu idhaa taargada iyo qor taargada ii soo yeeriyay taargada yaa qoray sa bursaneen jaama galnay marka ay ka feeko me wateen anaka bajaaja wadani dirbiye ka boole marka way naga fogteen waa soo noqonay dhinaca taalada soo aadnay meel checkpoint yaalo gacan kala geliyay marka gacanka waxay idhaheen saldhig boondeer aaday marka taargada soo qortay telefoonka wax dhan soo qortay meesha liga qaad marka waxay idhaheen ama dil soo helo anaka ku soo biceeno kadib mali soo bicin 26 markay mareys habeen oo 3 saac meelaas u dhaxeyso barti telefoonka liga qaatay mootadii oo shidaal la'aan ah oo meesha loo riixaya mid oo isku aabanahay arkay wiilkii ay soo bacay marka wuxuu dhahay Saabiriin taargada lambarkeed ii sheeg taargada lambarka u yeeri kalarkeed ii sheeg oo dhahay kalarka noocaas waa dhahay marka wuxuu dhahay mootada waa hayay soo baxo ay dhahay inta soo baxay meesha oo ii tilmaamay si isku la xarbinay meel hore isla tageen laamiye isla gaareenbo si wiilka isku dhignaa marka furo ka baxsaday wiilka marka tagay waxa arkay wiilku isku waalo midka mootada wadaayad markaas ku dhahay maxaa isku waalo wax ma isku ogtahay maya hadaa wax isku ogan sharciya jiro saldhigaas la tageena
haddaadan wax isku ogeyn waa lagu soo baaraa waa lagu soo deenaa cid wax kaa rabta male aan mootadan taleefona la iga qaatay waan u dilanahay haddaan dembi lahayn ayakaa kusoo kala caddeynayay waa lagu soo fasaxaa wiilka ilaa askarta ay ka imaanayso wuu isu waalaya walaalkii askariya walaalkii sahay kane bootoo gale marka shibaa ka dhahay ani askartii a imaade asi waa la waday mootadana waa la qaaday saldhigaa la geeyey maalintii kale aliisoo baa imaa baa liigu dhahay waa tagay 3 saac tagay waxay yacni fal kastoo u dhacay wax dhanaa liiga soo qoray anakaa kusoo bacayna ay dhaheen marka ani midka mootada wadaa wejigiisa habeenkii ma arkin labada kala wejigood arkay midka oo bistoolada igu dhufanaa taleefonka iga qaadanaa dhar caadi oo wati bistoolo ku weesnaa laakiin midka kale la socdana wuxuu wati shaati oo tuute ah oo cagaar oo wati labadaas wejiyadooda aqoonsaday laakiin midka mootada wadaa wejigiisa ma aqoonsanan ani marka mobilka nooca laga qaatay 15 Pro Max adi maxaa qabataa xayaada ka shaqeeya cashier tahay qaybta oo jikinka jooga adiga gacantaad ku qortamay qofka ku gurmanayo mootada walaalkii soo qabtay mootada lambarka aad ma qorto marka hore taargadaha niclaha wiilka ii dhiibi ii soo yeeriya dhaay marka taargada qortay taargada waxay aad A1H 83 niclaha ku qortay markaas askarta u yeeri saldhigan anaa tagay anaa soo qortay walaalka ha aqoonsada marka walaalkii aqoonsada taargada wuu hayasina anina maalin kasta waa baxaa marka oo mootada bajaajka asaarna mooto kasta feekom waa fiiri jir taargadeed yacni 10 iyo dhowr bariig soo wareegatay mootada meel ku xareysneeda oo maleena malu shaqeynaynin marka habeenkaaseeti ma aqaani shidaalka ka dhamaaday barti taleefonka laga qaatay asoo lagu riixay barti oo ku qabtay isla barti taleefonka laga qaatay gorma la soo celi taleefonka ayaan dhaxdaas liishay ali soo bacay maxalla wiilka oo kiiskayga hay wuxuu dhahay taleefonkaada waa la soo helay maxkamadoon yaala oo dhahay ma arkin laakiin aan ilaahad ma taqaan hadda miya taleefonkay waa aqaana marka kee aragt kuwa aqoonsatay kuwaas midkan geeska jiro iyo kaas xaq jiro midka dhaxda mootada wadaa ma aqoonsan wajigiis ma arkin habeenkaas labadaan arkay geesaha jiraan marka waxa dalbanay ween idileen taleefonkana way iga qaateen taleefonka ilaad way iga maqan yahay ma arkin waan u dilanaa cidaan iska fariis cabdifataax majir cismaan oo laga iibiyey taleefonkii la dhacay booliska boondheerana ay dib uga soo celiyeen ayaa isagana u waramay garsoorka ka warbixi arinta oo mobilka taliye gudoomiye mobilkaas soo beeca lay keenay degmada Cabdicasiis jooge anoo marshabiyeedka mootadeeda iska dul fadhiya mobilkan lay keenay lacag intaas ku rabnaa lay dhaay diyaar waan dhawa dhiiba mobilka iska dhiibay ayaan hadii la kala maqnaayne kadib waa lagu soo noqday mobilka la isku isticmaalay dhaay saldhiga taas ku imaado mobilkan iskaga dhiibay adiga mobilada gadaamiya maxaa dhax yaa may maxaa qabataa shaqadaad maxay ana mootola feekoon mobilada ma kala gidisay way mobil ugu keenay ina mobil baanta yaa u sheegay dadka ma ogeynba laakiin waxaan jaanis waa magaalada kartaa leeyahay bis waa gaarta marka yaa ku yimid oo keen ku dhaw mobilka saldhiga boondheer ku soo wacay saas ku soo celiiba lacagtii aad ka bixisad lacagtu waa jirtaa ayaga jirtaa way ka maqantaa way iga maqan yihiin waxa ahay mala laakiin mobil weyn oo iPhone aad naftiga $50 farsama ku jirta meesha maaha mobil shaqeeya isaacaas meen iPhone ayo xireen shaashad saar loo naqahay shaashad saar loo naqana screen saar marka taleefanka shaashada dhulka kaga dhaco jawaab kale mid kale gadaysa booskiisa gadayaasi kaasa lagu saaraa dhulka ku dhacsanaa ma wadansanaa oo daarnaa iska fariis goobtii xafiiska booqday waa goobtan oo dhac lagu geystay boondheero waay faras magaaliyi waay markaan magaalada waa la iska soo tagay duurka mootada dhac lagu geystay waa mootadan xafiiska xiraalinta gacanta ku hayo mobilka Saabrin ee lahayd waa kana gudoomiye xafiiska gacanta ku hayo dabaqil kadib xafiiska ayaa gacanta ku soo dhigay xarama gudoomiyaha halkan ka shido CCTV goobtan waa busley gudoomiye mootadaas gadaashaas imaanayso wadada kale mootada imaanayso feekoonta ayaa waxa saaran Axmed iyo Wiz Khalifa iyo waxa saaran iyo Afaa Jaban mootada bajaajta meesha hadda marayso ayaa Saabrin loo qaado doona mobilka hadda nimana marahay meesha mootada taagan waxaan oo dhan rabaan qofkaas had soo socdo waa Saabrin oo ugu dambeeyo oo kaliya socoto ayagana tabeelay taagnaayeen waa arkadeen qaybna intay ku jirtaa hadda Afaa Jaban oo kale soo daba kaca mooto feekoontan waa tana Afaa Jaban soo daba kacaayo waa kaas waxa bastoolada ku qabanayo waa Afaa Jaban gabadhu waa la hardamay bastooladii aas uu soo aadaa oo ka soo qaatay
وسمعنا مركب ماشي وكل عبا ما دام أنت موطي وحي جوان ماشي وكوردا أفاد جبان ومركب يسناه كواد واي صابرين وطلع مركب موطولانا مركب أركايو إن لقا قاتي ويراعي موطولان واتاس في كونت ساسي اسكو برسنايا وإلا جامك يا قشاه marka waxay saashay taargaday qoratay taargaday waxay saashay markii in la soo qabtay Axmed uu sheegay Wiz Khalifa uu sheegay afar jaban saas lagu soo qabtay mobilki baara ka socday saldhigga Boondheere ayaa garmaqalkan ku soo bandhigay natiijadii ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida Dhamme Cabdiyaare ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha ay ku xukunto qodobadii uu ku soo eedeeyay gudoomiye garsoorayaal maxkamad sharafta leh saddexda eedeysane waxaa ku soo kala eedeynay qof walba doorkiis eedeysane Wiz Khalifa oo eedeysanaha labaad ah waxaan cadeynay mudug gudoomiye in tiro dhowr jeer ah xabsiyada dalka uu walaal noqday iska dhaaf qof in hal mar la xiro caadi la tahay inay xirto in la iska dhaafo taas waxay keenaysaa mudug gudoomiye in caadeystanimadu iska caadeysta dambiyada ee arin adag ay tahay waxaana taas keentay inaan paragraph 3 la aadno oo dhigaayo qofkii iyo qodobka 61 qofkii mar la soo xiray mar labaad soo xiray caadeystanimada in xukunkii hore wax laga bedelo oo markaan ay ku dhaco xukun adag oo u qalma eedda lagu soo eedeeyay iyo dambiga uu caadeystaha ka noqday laba jibaarkiisna waa gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanay afar jaban waxaa lagu xiray saldhigga Boondheere waxaan helnay muuqaal aabihii uu damiinanayo oo markaa dagaal ka damiinanayo sidoo kalena uu ku jiro sargaalkii ayaana sababay ugu dambeyn in ninkaa la keeno waxaan soo bandhignay mudug gudoomiye CCTV been sheegto oo cadeynayso qaabka falku u dhacay iyo qabiixnimada ay ku dhaqmeen eedeysane afar jaban iyo Wiz Khalifa oo isna koowaadi labaad kala ah sidoo kale waxaan maxkamadda la wadaagnay dadaalna aan ku bixinay in la helo agabkii dabagal dheer kadibna xafiiska way u sahlanaatay arinkaas maxkamaddan oo hor keenay mobilkii la dhacay sidoo kale mudug gudoomiye waxaa maxkamadda hor keenay ninkii lagu qalday mobilkan ee $50 ka baxshay ee la yaabana nimankan mobil 900 joog inay $50 ka siiyaan waxa sababay ee marka dambe asiga inta soo raashlaama amniga dhahay mobilkana la leeyahay nimankii soo qaada wax dhaceen la leeyahay waa kanaabal taas oo ku tusinayso heerka nimanka ay ka gaareen $50 ayaa qof naftiisa loo dhaafin rabay $50 ayaa mobil 900 iyo maasaad laga soo baxshay la rabay lagu sii gatay waxyaalaha cajiibka waxaa kamid ah mudug gudoomiye eedeysan afar jaban inuu taagan yahay $15 oo kamid ah koodhina ku gatay koodhintan kala baran aniga Wiz Khalifa waa askari qaran waxa asaas ku hadlay askari qaran oo dhahay koodhina caba waxyaabaha cajiibka ay kamid tahay oo afar jaban uu ku sheegay magacadooda mudug gudoomiye ka yaabaysa afar jaban iyo Wiz Khalifa iyo waxaan la fahmin mudug gudoomiye ka soo reeyay maxkamadda sharafta leh qodobka 39 saarnay si eedan loo cusleeyo maadaama faras magaaliil isku soo galay maxkamadda sharafka waxa ka cusanaynaa waliba xoojinaynaa in xabsiya adag ee ku xukunto waliba paragraph 3 oo dhiga in 10 sano lagu xukumo si dhaca u yaraado oo Wiz Khalifa iyo afar jaban magaaladan ay uga nasato waxaan cusanaynaa in lagu xukumo 10 sano maadaama laga haayo dhibanihi maalkeeda sidoo kale maxkamadda inay xaqiijiso mobilku waxa ku yaal dhaawacyadaas ma ayaga u geystay mise dhaawac hore u ahaa haddii ay u geysteen maxkamadda waxa ka cusanaynaa in laga gado mobil cusub maxkamadda maasantahay qareenka eedeysanayaasha ayaa muwakkiliintiisu u codsaday in loo fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya lana siiyo xorriyaddooda mudane gudoomiye mudane garsoorayaal maxkamadda sharafta waa mahadsan tahay magacayga waxaa la yidhaahdaa abukaata maxamed macalin nuur taakow abukaata taakow waxaan qareen u ahay maxamed axmed cismaan 2 cabdifataax faarax cabdulle 3 axmed abuukar maxamed kuwaasoo lagu soo eedeeyey qodobada kale ah 484 bil furan 3 bil xiran /71 hakad 61 hakad 326 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 39 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
annagu haddaan nahay qareennada waxaan ku difaacnaa muwakileentayna si waafaqsan sharciga dalka u dhigan iyo shareecada islaamka qaanuunka dalka iyo shareecada islaamkaan ku difaacnaa kama difaaci karno cid dembi ay gashay laakiin waxaan ku ilaalinaa keliya sharciga haddaba muwakileentayda kan koobaad iyo kan labaad maadaama ay waafaqeen xarafka labaad ee 104 waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa maadaama ay ku eedaysan yihiin qodobada aan soo sheegay ayna yihiin niman dhallinyaro ah da'yar waxa ay geysteenna ay tahay moobeel ay ka bixiyeen $50 oo keliya waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay u fiiriso ifafaalaha dembiga fududeeya si waafaqsan qodobka 40aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xarafkiisa ga si kasta ay ku suurageli karto ifafaalaha dembiga fududeeya inay maxkamaddu u fiiriso eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha labaad aan codsanayo halka eedaysanaha saddexaad oo ku eedaysan 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo ah wada mooto Falcon biil ku raadiya kaasoo ah mid aan weligii oobi lagu qorin sida aan ogaaday hubiye waxaan maxkamadda ka codsanaa inay isagana u fiiriso si waafaqsan qodobka 126 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 47 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waa mahadsantahay saaxiibadaha maqlayno day saaxiibka aad iyo aad taliya mobilka adaa soo qaaday gabadha meesha soo istaagtay iyo kaamirada iyo asaa qaadaa leeyahay waxa ma ka jiro mis soo raacden asal wada socon dharka tuutaha waa kala bedelateen miya maya taliya ninkas wuxuu sii waday tuuta ma wad noo fasirba waxa meesha ka dhacay markiino oo jeed waxa sadaab isla socoteen waxa meesha ka dhacay maxay ahayn gabadha mobilka aniga kama qaadan adiga kama qaadin yaa ka qaaday ninkan diftaaxa ka qaaday wis khalifa ka qaaday aaw mobilka aniga maalintaas haweenkaas ilaahay kuma darnaatay nin shaqo lahaay ninkan wis khalifa aniga qaylay ilaahay kuma darnaatay goobteeda shaqaana dib iska laabta oo hilween ahayd shukaansiga inta ku dambeeyay shukaansiga markaa ka soo tagay aad mudane markaa ka soo tagtay kadib waxaan dhacin miya lacag ma ka soo gaartay lacag wax lacag ay soo gaartay male wixii lagu soo gaday meel la isticmaashay maya koodhin iyo waxba lagu soo gadaa la dhahoyaa waxaas ma la isticmaashay ninkan isgooska jubba u waar labadooda ilaahay kuma darnaatay isgooska jub markaa u waaray aniga markay al saaxiibar mareysana goobteeda shaqaaliga soo wacay hadda goobta shaqada jooga lagu xiray miya maya ana iskeen maxkamadda maxaa ka codsanay xorriyadeedii inaad dib u helo wis khalifa muxuu ahay magacaas inta ku yimid waana naas oo hay'adna isugu soo gaartay raabara taami adi maya waxaas ma jiraan mobilka gabadha wax qofka ka qaado adigu ay u dhahay saaxiibka waxaas beentiis waa xaruno hantida ninka soo celshaani waa in booliiska uu sheegnay hantida meesha ku maqan tahay ee ninka qabo markaa u sheegnay xafiiska xarlaalinta xataa waa la wadaagay cabdiyeere si fiican fahant waa la wadaagay in aan soo celi karin u sii sheegay haddii mjeeda jaanis la isii hantidan hadda waa soo celshaw ma soo celintu arkaaba karaaba yaa qaaday adiga baa qaaday ka soo qaaday siga qaaday maxkamadda waxa ka dalbanay ana waxa dalbalay cafis inay mjeeda dib u siiso axmed udin maxaa maxkamadda ka codsanay maxkamadda mudan inay xorriyadiisa siiso iska fadhiis inta uusan fadhigan soo xirin gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa dhibanad saabiriin axmed maxamed waxaa dib loogu celiyey taleefankii ay ka dhaceen eedeysanayaashan mobilka soo gaartaa kan caagi miya qaybta ma ka jabsaneen miya tuurida miya nooca ma ay kaaga markii oo laga qaaday kadib oo saldhigga lagu yeero ma tusin miya mobil korta inta qaatid oo furtid wixii ku jira iyo mushkilaadkiisa soo sheeg mobilkaagana qaado gabar fiican aad tahay waxaa lagu aqoonsaday inaad gabar geesiya tahay ya oo si taxadar leh oo u dadaasha guulayso cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho